بسم الله. إسماعيل وارسمة ديجيتال ميديا. وين سلامة دمانتي هذا كور وحنو كهذا اللي وسوى استعمالي أريا أما أريا ديمقراطية إنه ميل مجدي أكو دماتو سيدا قوري مجدي أو البعض الله صاحرتي مدحدا الصوماليدا waxa laga leeyahay war xalaal barqa laga shaayay waxaad ummadda u qabanaysaaniin si daahfuran haloo arko gaar ahaan maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dadka la shaqeeya waxa laga leeyahay war waxyaalaha aad gacanta kula jiraan oo iyo heshiisyada aad galaysaan iyo hawlaha dadweynaha xaq baa leedinku leeyahay hal la arko waxaa galaysaan oo dadka u sheeg horey waxa u soo dhacay oo la og yahay arrintii qalbi dhagax miyaad ka maqashay farmaajo ka hadlay arrin xaqiiqa oo jidda oo maaragtay waadixa oo goobjoog loo ahaa Eritrea ciidamada loo diraa la leeyahay ka qayb galay dagaalkii Tigray ee Ethiopia waxa la leeyahay eedaha la soo jeedin wax ka mid ah ciidamadaasu Eritrea ku isticmaashay say wax u xasuuqaan Eritrea Tigrayga dhexdooda qaar waxay leeyihiin iyagii baa la xasuuqay war lagama hayo heshiisku soo ku dhacay lama yaqaan innaga waxaanu maqli jirnay ciidamada loo diray halkaas tababar loogu diray ciidamadaas waxay ku dambeeyeen lama oga hadda waxaa la soo dambaysiinayaa in wafdi dowladda Soomaaliyeed ka socda oo wasiirkii batroolka iyo hay-adda batroolka Soomaaliya oo 5 qof ka kooban ay joogaan London waxaa la sheegayaa waxay halkaa u joogaan inay heshiisyo galaan oo u saxiixaan shirkadii dulaalka ahayd ee Xasan Cali Khayre ka tirsanaan jiray ama ka tirsan yahay ee Som Oil and Gas shiikhayn la yiraahdo u jooga shirkadda Soomaaliya laakiin xardiisu tahay Nairobi ayaa la socdaa leeyahay Ibrahim Hussein la yiraahdo oo horey looga ceeriyay shirkadda batroolka Soomaaliya oo ahaan jiray gudoomiyaha ayaa la socdaa leeyahay si heshiiska looga dhigo mid sanad hore la saxay maadaama tan iyo bishii February labadii maartay 20kii sanadkii 2021 aan dawladda farmaajo wax sharciyada ay ku fadhiyeen jiray heshiisna aysan saxiix karin ama geli karin si dadka loo jaawariyo oo laga dhigo in heshiiskaas la gaalay in February ka hor 2021 ka hor ayaa ninkan loo wataa baa lagu leeyahay Ibrahim Hussein hadii waa loo yahay ninkaas awal gudoomiye ka ahaan jiray hay'adda batroolka Soomaaliya laakiin waa laga eriyay sababta hadda ula socdo oo heshiis u galayo ninna ma garanayo waxyaalaha mugdiga ah weeye ee magaciisa waxa laga codsanayaa dadweynaha Soomaalida asalkoodu yahay ee ku nool wadanka Ingiriiska inay kacaan arinta ka hortagaan ogaadaan salkeeda soo xaaran khatar weeye Soomaalina dibandaabiye dambe uma adkaysan karo aad iyo aad baa u mahadsantihiin